caasimadda Canada ee Ottawa ayaa laba gabdhood oo Soomaali Canadian ayaa laga helay gurigooda ayaga oo meyd ah sida ay shaacisay laanta dambe baarista booliiska ee Canada waana kiiskii 23aad iyo 24aad oo sanadkan gudihiisa ka dhaca magaalada Ottawa oo ah caasimadda dalka Canada. Booliiska ayaa laga soo wacay guri ku dhow jidka Macquarie ee baara 9kii fiidnimo habeenkii Jimcaha kadib markii laga helay meydka labadaasi gabdhood oo da'doodu lagu kala sheegay 29 jir iyo 32 jir. Labadan gabdhood ayaa isla dhashay lagu kala magacaabaa Asma Cabdiraxmaan iyo Nasiiba Cabdiraxmaan waxaana dilkooda la xiriirinayaa nin dhalinyaro ah oo la sheegay in lagu qabtay goob aan wax badan ka fogeyn halka uu shilkaasi ka dhacay. Qof kale oo isna dhalinyaro ayaa la qabtay 10 daqiiqo kadib waxaana la arkayaa isagoo wajiga dhulka loo dhigay isla markaana gacmaha ka xiran xilli tira booliis ah la keenay halka uu dilkaasi ka dhacay. Dhismaha 320aad ee jidka Macquarie ee Ottawa ayaa lagu xiray calaamadda booliiska ee astaanta u ah inaan laga gudbi karin iyadoo aabihii dhalay labadaasi gabdhood lagu magacaabo Cabdiraxmaan Axmed Nuur. Ugu dambeyntii ilaa iyo hadda lama cadeen in ragga loo qabtay iyaga ay geysteen dilkan ka mid ah kuwa ugu naxtinta badan ee lagula kaco Soomaalida ku nool dalka Canada. Dilkan ayaa waxaa loo adeegsaday toorey. Haddaba arrintan ayaan magaalada Ottawa oo ah caasimadda dalka Canada qadka telefoonka kula xiriiray Cabdirasaaq Jaamac oo ah maamulaha xawaalada Amal Express Ottawa iyo shirkadda satellite-ka Mande waxaana marka hore weydiiyay inuu sharaxaad naga siiyo sida ay wax u dhaceen waxaana hadaladiisii ka mid ahaa. Waa salaamay arrintan waxa weeye in la raajicuun aad iyo aad baan ugu xunnahay gaar ahaan magaalada Ottawa geeri naxdin badan oo dadkii oo dhan ay la yaabeen taariikhan wali hore noo soo marin kiiskan nooca kan oo kale ayaa lagu dhacday aad baan ugu xunnahay gaar ahaan aniga waxa ii taabanaysaa gabdhahan gabar ka mid ah gabadha Asma la yiraahdo maalintii saddexaad bay ii timi halkan oo aabaheed ay lacag uga xawishay Soomaaliya gabdho fiican oo aad loogu soo tabcay bay ahaayeen oo maxaafidin quraanka xafiday maxaan ku raadaa tasfiirkiisana sidoo kaleeto tacab badan iyo dhaqaale badan la geeyay gabdho fiican ahaa hadda isu diyaareen nolosha meel fiican ay ka galaan marka arrintan sidaas aad u maqasheen ilaa iyo hadda dadkii waa loo hayaa lagu tuhmay xaaladda way iska tacsaysan wax fara badan kama sheegi karno intaas waxaan ahayn yani geeridu waa xaq qof kasta waa dhimanaya markii loo qoray hadda arrintu waa sidaasay u dhacday berri waxa weeye insha Allah sida la sheegay aaskii labada gabdhood gurigaasaa loogu tegay nayn oo kaloog waa lagu dilay maanta cid aan ku oran karno hebel iyo hebel baa dilay ujeedadaasaa laga lahaa midna ma jirto laakiin arrintu waa arrinta noocaasa ninka gabadhan dhalay dadkan anigu weliba qaraabaan ahayn saaxiibkooye gabadha maaragtay dhashay waxa weeye Sahro waa gabar aad iyo aad aan isugu dhoweyn marka waxa weeye si gooniya bay noo taabatay arrintaas ilaa hadda aan naga dhaadhicida waxaanu leenahay Allah u naxariisto gabdhahaas. Ma aha markii koowaad ama markii labaad oo dil noocan oo kala uu ka dhaco magaalada Ottawa oo ah caasimadda dalka Canada. Mahad Carab oo Cali telefishinka Universal magaalada Toronto ee dalka Canada.